qodobo dhowr ayaa inoo soo socda saataynu ku bilowno baarlamaanka Soomaaliya waxay aqrinayaan sharciga dulimaadka Soomaaliya waxaa aalada Skype-ka ku jira isagoo ku sugan dalka Mareykanka Maxamed Abuukar oo ah aqoonyahan dhinaca dulimaadka horeyna uga soo shaqeeyay dulimaadka Soomaaliya ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka bandhiga Universal Maxamed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Universal iyo dhamaan dhageystayaasha mudane iyo marwan leh. inta kadib baarlamaanka Soomaaliya waxay gacanta ku hayaan sharciga dulimaadka Soomaaliya adigu aragti ceenkee ayaad ka qabtaa sharcigan hadda baarlamaanka uu akhrinayo ee la rajaynayo dhawaan inuu meel mariyo marka anigu sharciga baarlamaanka la horgeeyay qof ahaan waa arkay waxaan isku dayay inaan akhriyo ama wax ka fahmo waxay ugu qaadatay muddo almost 2 sitmaan ah haba yaraatee horta sharcigaas la horgeeyay sharci ma dhihi karo waa wax sharci u eg oo haba yaraatee sharci ma aha laakiin waxaan dhihi karaa waa wax sharci la mooda waayo sharciga wuxuu u baahan yahay marka la suubinayo qodobo iyo nidaam aviation oo adduunyada u suubisay in loo tixraaco ayaa jiray marka sharcigan meesha ku qoran waa wax ka kooban 3 arrimood oo ah qayb laga soo manguuriyay macnaha wadanka Kenya aviationkiisa oo wax laga soo qaatay qayb criminal law ah iyo qayb loo diyaariyay macnaha ay sheeg sharci shirkadeed marka waxa meesha ku qoran sharci aviation wax lagu tilmaami karo ama wax habeerta la dhigi karo malaha turjumaadis marka fiiriso waa turjumaan aan ka yaabanahay qofka sarrifay ma dhihi karo aqoontiisa ma duri karo laakiin waxa is leeyahay ama dhimirkiisa qofkaas wax u dhameeyay waayo turjumaadu waa mid waada marka turjumayso waxa loo baahan yahay inay macnaheedu ama fahamki waxaas ay ka dhex muuqdaan marka haba yaraatee sharcigaas ma dhihi karo sharci aviation waaye laakiin nasiib wanaag Soomaaliya waxay qabtaa dhaxal looga tagay oo ilaahay macnaha ku badbaadinayo oo la dhihi karo waa sharci aviation iyo guideline kabi kara oo ekayo ay u diyaarisay oo loo qarash fara badan oo Soomaaliyeed ku baxay muddo dheerna laga shaqeynayay marka waan haysanaa sharci oo sharci basic ah ayaa maanta u yaala Soomaaliya laakiin waxa maanta baarlamaanka la geeyay haddii ay jirto qof khibrad u leh aviation ee sharcigaas wax ka og ama wax ka diyaarisay oo garanay horta ma jirto dadka diyaariyana dad haba yaraatee aqoon aviation leh ama aqoon sharciye leh inay leeyihiin amaleenay maaha marka sharci ma aha waxa laga horgeeyay baarlamaanka waxaan dhihi karaa waa wax qofkii xataa turjumay haddii la horkeen la baarlamaanka ee waxa meesha ku qoran akhri la dhihi lahaa ama macna dadka dhihi lahaa uusan asaga laftarkiisa u macnayn karin ama uusan fahmi karin marka haddii ay jiraan macnaha waxaan ka hadlaa aviationka qof ahaan qof baan ka ahay laakiin aviationka Soomaaliya dadka bartay way badan yihiin dadka lawyerka bartay way aqoonta aviation macnaha cilmiga lawyernimada bartay way badan yihiin bal qof fasiri kara waxa baarlamaanka la horgeeyay ama fahmi kara hadduu jiro bal baarlamaanku hor yaalay maanta hal la weydiiyo marka qof ahaan waxa baarlamaanka la horgeeyay waa wax naxdin leh waa wax cabsi leh waana wax ma aragtay aan weligii aan ka fikirno qof maskaxdiisa ay fadhida haba yaraatee waxaan ugu diyaariyay aan islahayn maxamed marka laga yimaado inaadan ku qanacsanayn nuqulka hadda baarlamaanka ay gacanta ku hayaan maxaad is leedahay in laga bedelo way tahay leen waa sharci uu dalka yeelanayo horta sharci marka la soobinayo horta aviation waxa uu asala 3 waa political will dawladdaas damac ay leedahay inay sharci hesho institution hesho wuxuuna leeyahay macnaha halbeeg lagu cabiro waa size-ka wadankaas uu leeyahay complexity-ga ama baaxadda adeegaas laga rabo iyo qaab dhismeedka dawladdaas ay leedahay ayuu sharci ku fadhiyaa marka sharcigu hadduusan intaasoo kaabe uusan suubinaynin ama aan laga dhex muuqanin sharci lama dhihi karo waxaana sharci marka la suubinayo u asala oo loo raaca 2 arrimood oo midka koowaad uu yahay macnaha NBA waa macnaha notice purpose amendment macnaha waxani stakeholders ka qoseeyeen hay'adaha kala duwanaa macnaha sharcigaas la falgalayay
iyo waxyaabihii badnaa horta koobal in notice la siiyo oo lasoo ururiyo commentiga iyo responsiga ay bixiyaan la documenti garayo marka qaabkaas marka la suubiyo ayaa sharciga baaxadiisa wuxuu saleynayaa in politicalki sharcigaasi waddankaasi loo abuuro kaasoo lagu saleynaya baaxaddi macnaha ama saaski sharcigaasi shaqadiisa ay kabargaranaysay iyo howlaha uu kabargaranaya marka sharcigan meesha ku qoran anigu sharci ma dhigi karo laakiin Soomaaliya wuxuu ilaahay macnaha nasiib u siiyey oo jira waa dhaxal uga tagay macnaha ii sheeg aabihii macnaha madaxweynihii ummadda Soomaaliya Allah naxariistay Maxamed Siyaad Barre sharcigaasoo la diyaariyey oo la diyaarinayay haddii aan xasuusto ama baarlamaanka laguna noqonayay muddo 14 bilood maanta waxaan xusi karaa oo nasiib wanaaga wasiirkii markaas wasiirka wasaaradda gaadiidka waa qabiir Soomaaliyeed waa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliyeed mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari nasiib wanaag waxaa nool maarayihii guud civil aviationka autonomouska macnaha Somali civil aviation autonomouska ninka xilligaas madax ka ah oo aan geeriisa maqlin oo magaciisa la oran jiray Ali Garaad oo nool iyo ninka ATM ka istam ATS ka isticmaal farsacade oo maanta aan filayo inuu Mareykan ila joogo gobol kamid ah marka sharciga Soomaaliya u yaalay markii la fiiriyo ama la diyaariyay waa sharci inta qaab ee hadda aan ka hadlayo lagu saleeyay khubaro ay diyaarisay baahi jirtay iyo dhibaato dhacday xilligaasna lagu saleeyay qaab ahaan iyo nidaam ahaanna maanta wax ka maqan oo aan garanayo aysan jirin oo kaliya u baahan in qaybta ugu dambaysa ay size-kina wuu leeyahay complexity-ga shaqadana wuu leeyahay kaliya waxa kaliya laga dooxay taa xilliga la diyaarinayay inaan ahayn dawlad dimuqraad macnaha dawlad macnaha republicana maantana aan nahay dawlad federaal marka qaab dhismeedka dawladda kaliya in la waafajiyo kaliya ciwaankeeda ayuu u baahan yahay waxaana daba socdo sharci kaleeto ee kaayo markii ay diyaarinaysay adeegan aviationka qalabkiisa tababaradiisa iyo maxaa lahaa iyo mashruuciisa waxay daba dhigtay sharcigiisa oo maanta yaallo waayo sharciga hadda maanta yaallo Soomaaliya baarlamaanka la geeyay saan filayo waa kaas ciwaankiisa meeshaan uu ka muuqdo sharciga Soomaaliya maantay u xareysnaa oo yaalay oo muqaaha yaalo dokumentigiisa complete-na waa kaas maanta yaallo amendment-iga ee kay u diyaarsan complete-na waa kaas waa yaala marka waxaan la yaabanahay xitaa marka sharcigan la diyaariyay initially wasiirku waana talageliyay waan akhrinay waa ku wareernay waxaan u sheegnay waxaan inay co-plagiarism yihiin labo uu yahay macnaha wax la yiraahdo maxaa la criminal law iyo waxaanan ka say ay ka fiican tahay kii dawladii Soomaaliya ay ka tagto lagu aas-aasay adeegan oo wax ka maqan oo maanta sharci ka wanaagsan oo aas-aasa uusan jirin iyo kii lagu kabaayay oo waxyaabii ka dhimanaa ahaa ee kay diyaarisay in inta la isku kaba baarlamaanka la geeyo Soomaaliya maanta xilli ay uga baahi badan tahay malawaayo sharcigani waxa ugu weyn oo subina waxay tahay waa qaranka Soomaaliyeed ee hawada dalka Soomaaliya lagu hanan lahaa way anaga hawadeena gacanta ka maqan tahay haday ahaan lahayd maxaa lahaa ii sheeg regulation ahaan iyo haday ahaan lahayd service ahaan oo service-kadan ay ka nagaysato regulation-kadan ay ka nagaysato marka si aan u soo wareegno shuruudahan hor yaalo ayuu ka mid yahay airspace Soomaaliya Soomaalida maanta xogaa dadku waxay ku wareersan yihiin waxa laga soo raray Nairobi waa adeegii hawada Soomaaliya ee laga hagi jiray Kenya ayaa Soomaaliya loo soo raray macnaheedu maaha hawada Soomaaliya la soo wareegnay hawada Soomaaliya gacantana way ka maqan tahay shuruudaha aan kula wareegleen waxa ugu horeeyo waa sharcigan institution-kii iyo hay'adii aviation policy laha waxa ugu horeeyo oo maanta baarlamaanka gacantiisa ku jiro oo maanta la geliyay waa sharci balse waxay heli karaan oo baarlamaanka xataa guddiga gaadiidka aan farta ka saarnay labadan sharci oo aan tusnay baarlamaanka inta ka dhimanna waxaan sii karnaa documentigan haddii la wadaagana waa khayr haddii ka tana xogeyntooda keenaan waa u soo gudbinaynaa bal Soomaaliya ama baarlamaanow intaad fiirisaan sharciga Siyaad Barre uu ka tagay Allah u naxariisteen qiimaha iyo qaayaha iyo hantida asadkaas quruxda badan ee adduunyada aan kula saan qaadi karno iyo midka amendment-iga sidoo u qurux badan yahay oo kan lagu kabi karo qaybaha ka maqan oo service-ka markaad akhrisaan
ayaad arki kartaan waxa ka qaldan sharcigan maanta laydin hor keenay iyo dhibaatada uu waddanka gelin doono iyo inba lagu talagalay inaan waddankaaba hawo loo soo celin waayo markaan fiiriy waxaan idhi mindhaahawada Soomaaliya maba la rabo in la soo celiyo waayo haddii sharciganba la horgeeyey baarlamaanka ee baarlamaankan ansixiyo sharcigana maaha sharci Soomaaliya lagu maamulayo adeega aviationku waxaa bixiya guideline-kiisa ee kaayo adduunyada wada siiso sidaan ku waafaqi lahayn iyo qaabkan ku waafaqi lahaynna waa midka Siyaad Barre uu diyaariyey amendment-ga naloo siiyey inaan helno balse haddii kan meesha la geeyo waxay la tahay adduunyada waxay ilaalinayso waa shuruucda adduunka marka kan meel uu waafaqayo ama meel la geyn karo ma umaleeno jiro hadduu jiro qof iga aqoon badan dad iga aqoon badan farabadiina bal qof fasiri karo oo aviation maanta waa 100 iyo washiye bal inta la horgeeyo qof fasiri karo hala keeno Soomaaliya maanta haddii maxamed awkar haddii aan ka dhex galo marka laga hadlayo arrimaha dulimaadyadu waxaad moodaa sanadihii dambe in Soomaaliya ay horumar fiican sameynayso haddii noqon lahayd xagga garoomada rajada laga qabo inay soo laabato diyaaradii Soomaaliya rajada markaasi wasaaradda dulista iyo hawada Soomaaliya ay markaasi ka muujinaysay dawladaha kale iyo qaabka wax la qaybsanayso marka dhinacaas marka laga eego soo lama oran karo horumar fiican ayaa jira dhinacan sharciga hadda baarlamaanka hor yaalla akhrinta ku jira isaguna wuxuu soo maray dhinacyo badan oo meelo badan ayaa laga soo eegay sidaas ayuu ku soo gudbay haddii ay dhaliili dhinaciina ka jirto oo xeeldheerayaasha dhinaca duulimaadka ileen ka mid tahay soo kumay habbooneen dhinacyada ay qusaysa inaad la xiriirtaan oo aad u ifisaan waxa aad markaasi tuhmaysaan horta waxaan kuu muujinaa maantay aan kuu ballan qaadayaa ama aan kuu sheegayaa sharcigan qof aviation Soomaaliyeed ah oo macnaha ka qayb galay turjubaadiisa iyo diyaaradiisa habeeratee ma jirto hadda baarlamaanka marka la horgeeyey qofka aqoon-yahanka ah ee ka hadlaya ee baarlamaanka hortiisa ka hadlay ama Maxamed Xasan waxa uu sharaxayo waa baahida aviation iyo muhiimadda sharci aviation in la helo ayuu sharaxayaa bal Axmed Maxamed Xasan sharcigan baarlamaanka la horgeeyey maantay inta la soo qabto sharax la yiraahdo ma sharaxi karo sharcigan because waxa meesha ku qoran waa wax annaga qof ahaan inteena communication kale Axmed Maxamed Xasan ka mid yahay uu ka mid yahay dad kale aqoon-yahanka kulli aan wada aragna waa qof sharaxi karo oo nagu jiro lama arko marka process uu soo maray oo way arag ama si aqoon-yahan aviation sharcigan gacan saar habeeratee ma jirto sharciyada aan aragnay ee aan aqoonta u leenahay ee aan iskaga marqaati kacayno intaan aviationka waa midka Siyaad Barre ka tagay iyo midka ee kaayo u diyaarsan Soomaaliya oo qarashka uga baxay oo muddo badan la diyaarinayay waa labadaas sharci aan ka warhayn annaga aviation dadka khibrada ah aan ka warhayn marka kan wata maxamed awkar doodaada ma loo fasiran karaa haddii annaga aynu nala soo marsiinin oo aragti aan ku lahayn sharciga kaagsan maahan sidaa ma loo qaadan karaa hasha waxaa weeye sharciga maantay waxa uu hor yaalla waa baarlamaanka Soomaaliyeed waa dad aqoon leh waa dad waay aragnimo leh waxa dhex fadhiyo ninkii shuruucdii hore ee aviationka diyaariyey ee xilliga wasiirka ahaa ayaa fadhiyo dad naga aqoon badan oo looyaraha fadhiyo dad waay arrimada la fadhiyo bal intay akhriyaan hala barbar dhigo sharciga Siyaad Barre iyo sharciga ekaayo ee diyaarsan gaarla ninka inta la barbar dhigo hadday bal wax fahamkooda oo annaga waxaan sheegan wax ka duwan ay soo baxaan bal hala arko laakiin waxaan baryeynaa in sharcigan la barbar dhigo kii Siyaad Barre uu keenay oo macnaha ka tagay alla naxariisto oo ah asad Soomaalidu aad qaali u ah wax lagu faano lagu xusuusto macnaha legacy uu ka tagay ah iyo kan ekaayo waxa ka dhiman kabi doona balse waxa yaala maantay sharcigan hor yaallo iyaga in isbarbardhigan laga rabaa maanta gacantooda ku jira ayagaan magan u nahay ayagaa Soomaaliya wakiilka waxaan baryeynay inay fiiriyaan aan rabno horta waa xildhibaanada inay la fahamtaan ka rabaa midda kaleeto maanta horumarka Soomaaliya la gaaray markaad ka fikiraysa ama Somali Airline ha noqoto ama la soo wareegida hawada ha noqoto ama gormadan kordha ha noqoto hal mid hal xasuusnaado Soomaaliya waa wadanka Afrika xagga opportunity-ga aviation-ka Ilaahay ugu maneysiyay waayo waa suuq ugu weyn oo 2 milyan iyo in ka badan ayaa Soomaaliya dibadda ka jirto marka diyaaradaha habqanka ah ee aad aragteen ee ama Kenya Airways leh ama Ethiopian Airlines leh
ama sacuudiga dalabkiisa yaallay iyo qatar haddii xataa kuwii shirikaad kale ku darsoomaan soomaaliya waa suuq aada u weyn oo aviation industrigiisu africa waddan kula tartami kara uusan jirin leave alone dadka dibadda ka imaan ajaanibtaa soomaalida keliya suuqooda min macnaha ras caseer ilaa ras kamboni macnaha buuxinaya marka midda kale sharciga marka la suubinayo waxaa loo suubinayaa waa waddankao dhan ee looma suubinayo gobol gaara ama muqdisho keliya marka waxaa loo baahan yahay in sharcigu uu kaamilayo ama kabargaraynayo dhammaan mas-uuliyadda iyo shuruucda iyo nidaamka waddanka guud ahaan uu wada leeyahay aviationkiisa xag xag garoomo iyo xag rijimbo marka waxa intaas ka muuqdo oo intaan kuu sheegayay ama ahayd saddexda asalka ahayd ama politicalkii sharciga institutionkii halbeegii sizekii complexitygii iyo qaab dhismeedkii iyo noocyada loo habeeyo kulligood waxa waafaqay waa wax dhaxalkana lakaga tegay iyo midka amendmentiga laakiin sharciga maanta meesha yaallo waxaan baryaynaa baarlamaan ka baryaynaa inay bal indhahooda furaan baahida maanta aviation sharci u qabo waxa ku xiran waa wax walbo waa hawadii dalka in lala soo wareego waa in qaab dhismeedkii iyo macnaha infrastructurekii garoomadii waddanka lagu habeeyo waa in ay ka dhalato kadib in la baadi goobo waxa diyaarada aan diiwaan gelin doono iyo waxa certification aan bixin doono iyo ugu dambeyn inaan dhaxalkii soomaaliyeed ee Somali Airline aan amamano waa Somali Airline waxa dhaxal ku yaal maanta waxay tahay waa routes iyo waxa la yiraahdo suuq iyo routes waa qabta dhaqaalihii marka ay heli lahayd ay kula shirkooda adduunyada diyaarada lagu abuur lahaa waxa ay ugu xiran tahay waa regulation marka aabaha iyo hooyada Somali Airline waa aviation oo dhashay aviation dhalan Somali Airline ma imaanayso horta aviation ka dhalashadiisa baarlamaanka maanta nasiib gacanta ku gaaray annaga inuu gaarbaar gacanta gaaro muddo badan ugu qaadatay ilaa iyo waxaan ugu qaatay xilliga Sheekh Shariif xilliga Xasan ugu qaatay maantay waa nasiibka ugu horeeyay ujeedada ahayd inuu gaaro gacantooda ku jira laakiin waxay u baahan tahay ka baaraan deg iyo fiirin waxay u suubinayaan Soomaali sharci marka sharciga gacanta ku hayaan oo loo gudbiyay bal ha barbar dhigeen dhaxalka siyaad bare ka tagay ee ahmed nagu filan naga badano bes laga duuli kara ah haddii la dhamaystirana lagu dhamaystiri karo midka ekaya guidelineskeeda ay daba dhigto waayo annagu sharcigu kama bilowdo waddankeega wuxuu ka yimaadaa ekayo habkan u dabaqayno ayayna ku xiran tahay marka aas-aaska adeegan dhalashadiisa iyo guushiisa maanta ilaahay mahadiis waxay gacanta ku jirtaa dowladdeena Soomaaliyeed oo madaxweynaha u weyn yahay ra-iisul wasaarahana ku xigo iyo baarlamaankeena ayay magan u tahay anigu kama shaqeeyo aviation maanta banaankan ka jooga codkan aan gaarsiinayana waa codka qof kasta oo aviation uu gaarsiin lahaa waxaana laga yaabaa inay Soomaaliya wada joogaan qof walba iyo reer kastana waa ka dhasheen bal inta dib loogu celiyo maxay arrintan tahay qof walba la weydiiyo haddaan isku cod noqon weyno waa dambiga qaadanaya aad u maasay daawadayaal waxa uu ahaa maxamed abukar oo hore uga shaqeyn jiray arrimaha duulimaadyada Soomaaliya kana hadlayay sharciga dhinaca duulimaadka ee waqtigan hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya ee aqrinta ku jira lana rajaynayo dhawaan in la meel mariyo aad u maadsan wuxuu ku sugnaa dalka Mareykanka aalada Skype-ka ayuu uga qayb galay barnaamijka bandhiga